Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaad kusoo dhawaataan channelka Somali Share Education Network. fadlan haddaad tahay qof nagu cusub waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe ii saartid, sidoo kale gambaleelka aad furatid si ay kusoo gaaraan muuqaaladan soo dhigayno. Videogan maanta waxaan ku bilaabi doonaa koorsi cusub. Koorsigaas aan ku baran lahayn qaabka aan u samaysan lahayn website free ah aniguna wax kood aanan qorin. koorsigan waa koorsi run ahaantii aad iyo aad u fiican qof walba oo rabo inuu ka faa'iideysto dhanka sameynta website-yada. aad iyo aad ayuu muhiim ugu yahay. muuqaalkan maanta wuxuu noqon doonaa koorsigeena 10kii koowaad. marka waxaan uga hadli doonaa waxa introduction-ka website-ka. maadaama aan rabno inaan website aan sameysano waa inaan ogaanaa ama aan naqaanaa warbixin ku saabsan website-ka. cutubiyada ama mawduucyada maanta aan ka hadli doonano waa 5 mawduuc. ugu horeyn waa WhatsApp wuxuu yahay iyo sidoo kale web page, sidoo kale web server iyo web browser, sidoo kale waxa domain name la yiraahdo iyo website kan sameyn doono oo ah blogger. marka aan u gudagalno what is a website and web page. halkan waxaa taala laba su'aal. labadaas su'aal waxay yihiin waxa uu website-ka yahay iyo waxa uu web page-ka yahay. marka ugu horeyn waxaan ugu hormar doonaa website wuxuu yahay. saad arkaysid website-ka waxaa la dhahay is a collection of web pages. website-ku wuxuu iskugu jiraa web page badan isku geeyay kaasoo lagu booqdo domain name aan misna laga soo daabacay ama laga soo publish gareeyay web server. macnaheedu waxay tahay website-ku wuxuu ku leeyahay waa collection of web pages, waa pages isku jira, pages-kaasoo magac leh kadibna server dhex yaalo. sidoo kale website-yada waxaa loo qaybiyaa qayb aad u fara badan, balse inta ugu muhiimsanaa waxay tahay laba qaybood oo kala ah topic mawduuc ahaan in la isku siiyo iyo ujeed ahaan in loo qaybiyo. labadan qayb ay noqotaa bas topic ahaan ama purpose ahaan. haddii aan example aan ka bixino yani kuwa ugu caansan waa 5tan soo socdo. ugu horeyn waxaa ugu horeeya website-yada news soo deeyo, sidoo kale education, sidoo kale commerce kuwa ganacsiga ah, sidoo kale entertainment kuwa madadaalada ah, iyo sidoo kale kuwa social network sida Facebook iyo wixii la halmaado. haddaba waxaad ogaataa website-yada sidiisaba labada siyaabood in loo kala qaado topic ahaan iyo ujeed ahaan. intaas waxaan ugu bixinaa definition-ka ama qeexida website-ka ay leedahay. sidoo kale saan sheegnay website-ku wuxuu iskugu jiraa web pages fara badan. sidoo kale web page-ku wuxuu yahay yani waxaa lagu qeexaa inuu yahay waa document, waa hal documenti, yani hal malaf ama hal file ama hal document qoran oo diyaarsan kaasoo leh addresskiisa u gaar ah. haddeertan halkan waxaa laga wadaa in maadaama website-ka iskugu jiro web page fara badan, marka web page walbo waa hal documenti walbana wuxuu leeyahay magac. so macnaheedu waxay noqonaysaa documenti walbo oo magac leeyahay. for example haddeertan markii aad Facebook aad booqano ama YouTube ka aan booqano ama any kind of Google ka searching markaan rabno inaan booqano, page-ka ugu horeeya ku soo baxayo waa web page leedahay waana hal document diyaarsan. halkaas document wuxuu noqon karaa mid sida Facebook marka ugu horeyso ka qaadayo password-kaaga iyo email-kaaga si uu kuu furo. so that is waxaa la yiraahdaa interface ama Google-ka sidoo kale searching face oo ku soo kaca. balse website-yada oo ugu caansan yani mostly website markaan dhahno sida kuwa waxbarashada iyo kuwa ganacsiga iyo kuwa sidoo kale news-ka ayaga waxay leeyihiin malaha markii page-ka la booqdo home page wax la yiraahdo. so this is the home page. magaca hadda aan lahayn waa home kaas ayaa magac u ah. sidoo kale about us dhici karto. sidoo kale
waxyaalo aad u fara badan aad dhici karto. Yacni marka waxaa laga wadaa waxay tahay page walbo oo kuu furan website-ka aad ka taagan tahay magac u khaas ayuu leeyahay, waana hal document kuu furan. طبعا documentigaas waxaa dhici karta linkiyo fara badan inay ku xiran yihiin, balse linki walba markaad click garitid page kala khaas oo kuu geynaa. marka waxaad ogaataa pagekaas wixii ka kooban sawiro, image, video, wuxuu doono ha noqdo that la yiraahdo web page. halkan waxaan uga baxnay waxa la yiraahdo website iyo web page. sidoo kale waa maxay web server? waxaan sheegnay web serverka website-ka in web serverka laga soo deeyo ama laga soo publish gareeyo. web serverka waxaa lagu qeexaa inuu yahay is a computer software, inuu yahay computer software in underlying hardware kaasoo dhex yaalo hardware. macnaha waxay ka wadaan waxay tahay yacni waa software computer ah kaasoo hardware dhex yaalo. hardware wuxuu noqon karaa in computer kala dhexdiisa inuu yaalo ama hard disk inay ku dhex jiraan, kaasoo aqbalaya codsiga oo qofka markuu waxa rabo inuu website booqdo. marka waxaad ogaataa web serverka inuu yahay meesha lagu keediyo website-yada lagana maamulo website-ka. sidoo kale website-ka waxaa lagu leeyahay in wuxuu aqbali karaa ama keedin karaa xog taasoo soo diro dadka if it is configured to do, haddii loo programmiyo. macnaha waxay tahay web serverka kaliya in طبعا website ownerka dadka website kale waxay awood u leeyihiin inay maamulaan. sidoo kale web serverka wuxuu ku leeyahay dadka website-yada soo booqda. for example haddii adi website-ka loogu programmay inuu ummadda soo booqato xogtooda qaado ka keediyo, yacni inuu taasna qaban karo. طبعا waana sax sababtoo ah hadeertaan markii aan rabno inaan gmail samaysano anaga xog baan gelinaa, xogtaasna serverka gmailka ama google-ka lahaa ay ku save gareysmaysaa. sidoo kale in any website aad ka diiwaangelinaysid waxaa loo programmiyey in aad waxaad soo qortid ama waxaad in ku diiwaangelisid oo kuu save gareeyo. marka this is waxay ka wadaan waxay tahay yacni ma aha kaliya mail website la dhex dhigo, wuxuu awood u leeyahay in oo qabto wax alaal wixii looga talagalay inuu sameeyo. marka web serverka waa meesha ugu muhiimsan website-ka la dhigo lagana maamulo. halkana web serverkan ugu bixi doonaa. sidoo kale waa maxay browser? طبعا markaan u baahannahay inaan booqano website waxaan u baahannahay browser inaan haysano. browserkan waxaa lagu qeexaa is an application accessing website. waa application looga talagalay in lagu access gareeyo ama lagu booqdo website-ka and internet iyo sidoo kale internetka. internet markaad haysano automatically website yani browserkeena soo kicinayna kadibna waxaan ku booqanaynaa website. this is waxaad ogaataa browser inuu yahay program ama application looga talagalay in website-yada lagu booqdo. sidoo kale wuxuu sii faahfaahinaa web browserka qaabka uu shaqeeyo. wuxuu ku leeyahay when a user requests a web page, marka userada dadka website-ka web page ka codsadaan misana website khaas ay ka codsadaan, browserku wuxuu sameynayaa in oo codsigaas qaado kadibna serverka la tago. xogtii waxaa laga dhex raadinaa in serverka markii la tago waxaa jiro website-ku intaasoo web page badan uu leeyahay. dadka markay website-ka sameeyaan in طبعا from scratch markii website laga qorayo sida HTML ama PHP dadka yaqaan ama ASP, yani waxaa loo sameeyaa in file fara badan. filalkaas oo kale ah yani page walbo iyo page-ka isku xiriiraan hal meel in laga geeyo. ninkan qofka booqashada hadeertaan wuxuu ku leeyahay markuu codsado hal page oona ka codsado website, in browserka wuxuu sameeyaa codsigaas ayuu qaadaa. yani waa linki codsigaas markuu raadiyo ama fileka marka meesha ama web page meesha ku jiro web serverka dhex yaalo kadib screenkiisa kusoo booqanaysaa. marka waxaad ogaataa browserka inuu yahay
applicationka lagu booqdo website-yada. Sidoo kale waa maxay domain name? Domain name waa magac haddii aan si kooban u dhahno waa magac lagu booqdo website ama waa magaca uu leeyahay website-yadu ama waa magac loo bixiyo website-yadu. Laakiin halkan hadday aan sii fasirno, a domain name is a text that user types into the browser to reach particular website. Waxay leeyihiin domain name-ku waa qoraal kaasoo qofku ku soo qorayo browserkiisa si uu u booqdo website khaas ah. The domain name sidoo kale the domain name can be created in other subdomain. Yani domain name-ku wuxuu awood u leeyahay domain qaar waxay awood u leeyihiin in dhexdooda laga dhex sameeyo subdomain. Sida hadeertaan anaga aan arki doono markii aan sameysanayno domain name-keena subdomain-ka markii aan ka sameyn doono subdomain-keena wuxuu u ekaan doonaa qaabkan hoos. Marka waxaad ogaataa domain name hadeertaan anaga waxaan isticmaalayna maaha domain name, waxaa la yiraahdaa subdomain sababtoo ah waxaa si free ah ama balaash aan ugu siisay in blogger-ka. Yani hadeertaan aniga magaca oo website-keyga waa intaan and this is the subdomain. So this is subdomain. Yani haddii kan keli .com somalitic.com ahaa lahaa waxaan dhici lahayd in la yiraahdo domain name sax ah. Balse hadeertaan waa domain name shaqeynayo, lasoo booqo karo, in website-kaas xog lasoo dhigi karo, dad daawan karaan, balse wuxuu had iyo jeer hoos tagaa blogger-ka. Okay, waxaan soo gaarnay gabagabadii introduction-ka maadadeena. What is blogger? Waa maxay blogger? Blogger-ku is an American online system. Wuxuu lagu qeexaa blogger-ku inuu yahay American system American iska leh taasoo la helay 1999kii. Misana dadkay u gartay inay blog ay soo ku qortaan. Sidoo kale blogger-ka waxaa hormariyay shirkaddan la yiraahdo Barrier Labs. Kadibna sidoo kale 2003 waxaa iibsatay shirkadda Google. Google-ka ayaa markaas waxay sameysay in qof alaala qofkii rabo inuu website blogger ka dhex sameeyo in ay siinayso subdomain kaasoo magaciisu yahay blogspot.com. طبعا blogger-ku markaad ka sameysid website waxaad awood u leedahay domain name inaad soo iibsatid oo kadibna aad ka bedeshtid. Balse haddii aadan domain name-kaas haysan, yani inta ku meel gaar ama forever waqtiga doonta ha noqoto, blogger-ku wuxuu awood u leeyahay inuu subdomain ku siiyo. Sidoo kale hadalkan hoose wuxuu leeyahay arrintan oo Google-ka in qof website ka dhex abuurto oo misana in ayaga ay u host galayaan ama u hayaan ama server ay u noqdaan in waxay bilaabatay markay ahayd May 1 2010. Marka waxaan ogaanaynaa inay useradu loo ogolaaday waagii hore maysan jiri jirin. Marka 2010kii ayaa waxaa la ogolaaday in dadkooda idilba ay blogooda ama website-kooda ku samaystaan. Kadibna web hosting ama web server-ka inuu blogger-ka u noqdo. Arrintaana waxay ahayd taariikhda halkaas ku xusun. Sidoo kale intaanan muuqaalkeena aanan ka bixin, waxaa haddii aad u baahan tahay inaad samaysatid ama koorsigan aad la jaanqaadid, waxaa lagaaga baahan yahay waxay tahay ugu horreyn waa inaad Gmail haysataa. Sidoo kale website haddii aad u baahan tahay maskaxdaada ka guuxayo magaca kuu diyaarsan yahay. Sidoo kale waa in ujeedo oo website-kada u sameynaysid. Hadeertaan anaga saad arkaysid website-keena maadaama aan ka hadalno waxyaabo cilmi ah, marka wuxuu soo galaa education. Marka this is waxaan dhahaynaa website-keena ujeedka aan u sameynayno inuu yahay educational purpose. Marka haddii aad rabtid inaad website sameysid, ugu horreyn waa inaad Gmail haysataa. Sidoo kale website magaca aad ku diyaarsan yahay because maanta yani magac waa muhiim. Magacaas wuxuu noqon karaa haddii aad YouTube leedahay ama TikTok leedahay aad rabtid inaad isku maadgaraysid, waa inaad magac kuga habboon oo ku fiican
oo kuu fudud aad dooran kartid. Kadibna mawduucyada aad soo dhigi doontid ama mawduuca aad website-kan u sameyn doontidna aad ogtahay, sababtoo ah maanta markii aad ogtahay waxaad qabanaysid waxaa kuu fududaanaysaa qaabkaad u qaban lahayd. Cashirkeena halkaan ayuu ku eg yahay. Intii aan cashirka xiga aan ku kulmaynana waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.